Imaashaha Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka ee magaalada Baydhabo ayaa ku qatamay ka qaybgalka shirweynaha madasha arrimaha bini'aadantinimada dalka oo ka dhacay magaalada Baydhabo. Shirkan ayaa waxaa isugu yimaaday wasiirada arrimaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha samafalka ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka iyo wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo ka qaybgalay shirweynahan madasha arrimaha bini'aadantinimada dalka ayaa ka hadlay furitaanka shirkani. Ugu horeyn madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ka hadlay furitaanka shirka ayaa ugu baaqay dadweynaha Koonfur Galbeed inay ka shaqeeyaan horumarinta wax soo saarka dalagyada kala duwan ee ka baxa deegaanada Koonfur Galbeed iyo ka shaqeynta arrimaha amniga. waxaan si gooni ah ugu mahadcelinayaa Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka iyo wasiirada saaxiibadeyda ahaa kulliyadeyda ahaa saa ogtihiin 7 bilood ka hor waxaan ka tirsanaa golaha wasiirada federaalka markii aan arko saaxiibaday ay ii yimaadaan farxad gooni ay ii tahay waxaan soo xasuustaa wixii aan ku jiray iyo shaqadii fiicneed oon qaranka Soomaaliyeed u hayay si gooni ah wasiirada iyo saaxiibadii oo yimid Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka aad ugu faraxsanahay shaqada fiicneed ay weli aan haynay ay wadaan gobolada iyo deegaanada waxaan dadka shacabka reer Koonfur Galbeed baa ugu direynaa inay ka shaqeeyaan sidii ay wax soo saarkooda u soo ceshan lahaayeen amnigoodana uga shaqaysan lahaayeen si ay uga baxaan duruufahan adag oo nololeed oo Mahdi Maxamed Guuleed Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka oo asna ka hadlay furitaanka shirweynahan ayaa ka sheekeeyay xiriirka ka dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya isagoona tilmaamay shirkani inuu muhiim u yahay dhammaan dalka Soomaaliya si looga hortago awaaro ku yimaada dalka. kala soo qaybgalaan iyo wafdi xukuumadda federaalka shirka arrimaha bini'aadantinimada oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Baydhabo taasi macnaheedu tahay aad ka warqabtaan Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka inuu shaqo fiican oo dib u heshiisiinta iyo arrimaha qaramaynta ciidamada uu ka wado maamul goboleedka Galmudug. taasi waxay tusaysaa in dowladda federaalka ay kala soo qayb gasho maanta Baydhabo shirweynahan ka furmaya Ra'iisul Wasaarihina jooga Galmudug isu soo dhawaanshaha iyo kalgacaylka iyo wada shaqaynta u dhaxaysa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada. xiriirka annaga iyo dowlad goboleedada naga dhaxeeya waa mid guuna oo si adkaanaya marba marka ka dambaysa oo qoto dheer oo wada shaqayneed oo iskaashi oo wada tashi xiriirkan Ilaahay kiisa waa sii adkaynaynaa wayna sii xoojin doonaa dib u habeynta dastuurkana qayb weyn oo la xalay ayay ka qaadan doontaa. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle TV-ga Soomaali Cable magaalada Baydhabo.